barnaamijka socdaalka aqoon maal waa barnaamij wacyigelin ah oo adeega aqoon maal uu kaga qayb qaadanayo kor u qaadidda wacyiga guud ee bulshada. barnaamijkan oo shirkadda Telesom ay ka daahfurtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu bilaabay qaar ka mid ah dugsiyada sare ee magaalada Hargeysa. barnaamijkan oo ah tartan aqooneed ayaa waxaa lagu weydiin doonaa ardayda weydiimo laga soo xulay qaar ka mid ah barnaamijyada waxbarasho ee adeega aqoon maal oo kala ah layliye, istijaabi iyo afbarasho. barnaamijka ayaa waxaa lagu bixin doonaa hadiyado qiimo badan oo kala duwan. miyaad hubtaan ina garatay hadiyadda barnaamijka socdaalka aqoon maal bushqadaasoo alaab kala duwan ay ku jirto waa kow. jawaabtaasina sidaasi ayay sax ku tahay. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad dhammaanteed iska leh. waxaa saaka martidiin ah barnaamij la yidhaahdo barnaamijka socdaalka aqoon maal oo shirkadda Telesom ay leedahay. barnaamijka aqoon maal oo laga yaabo in fariimihiisa marar badan aad ku aragtaan telefoonka marka laga yimaado wararka iyo sportiska iyo waxyaabaha la mid ee ku jira. waxaa si gaara ardayda u khuseeyay 3 barnaamij oo mid waliba career-kaaga aqooneed inta aad ku jirto wax weyn uu ku tarayo. 5 arday oo ka mid ah ardayda dugsiga sare ee Alhuda qaybta inamada ayaa waxay heli doonaan hadiyado. tartanku sidoo u dhacay markaan idin la wadaago. arday kasta oo soo kaca bushqadaas waxa uu kala bixi doonaa warqadda waxa ku qoran lambarkaasi su'aasha u soo baxda ayaa la weydiin doonaa. haddii uu ku guulaysto hadiyad buu heli doonaa. way soo dhawow magacaaga iyo fasalkaaga. Jimcaale Abdileys. fasalkaaga Tuuje. waa Jimcaale oo fasalka labaad ah. nasiibkiisu eegan doonaa. lambar buu la bixi doonaa. lambarku inoo sheegi doonaa su'aasha u soo baxda. lambar 25 soo dhaw Jimcaalo. waxa u soo baxay nasiibka su'aal dhaqana. su'aashani waxay leedahay marka ay xooluhu biyaha mar labaad ku noqdaan waraabka. xoolaha marka la waraabinayo ee intay cabaan haddana mar labaad ay ku noqdaan waxa la yiraahdaa 1 wabax 2 rakaado 3 cokan. 3daa mid baa dooranaysa. Jimcaale waxa uu doortay jawaabta labaad oo rakaada. jawaabta uu bixiyay Jimcaale sidaasi ayay sax ku tahay. saxabka giijeen Jimcaale waxa uu ku guuleystay 3 hadiyadood. hadiyadda koowaad waa bushqada barnaamijka socdaalka aqoon maal oo ay ku jiraan hadiyado fasalkiisa iyo aqoontiisa iyo noloshiisa guud wax ka taraya. sidoo kale waxa uu ku guuleystay oo telefoonka loogu shubi doonaa barnaamijka hadal oo hadaalin. sidoo kalena barnaamijka aqoon maal ayaa loo furi doonaa. ardayga labaad oo fasalka koowaad ama fasalka saddexaad magacaaga iyo fasalkaaga. magacaygu Amiin Maxamed Ismaaciil class-ka Wanji. Amiin Maxamed Ismaaciil oo fasalka koowaad ah waxa uu dooran doonaa isaguna nasiibkiisa iyo waqtiga nasiibka u soo baxa. kadibna waxaynu eegi doonaa su'aasha lambarkaasi uu noqdo. waa imisa lambar 24 waa su'aal aqoon guuda. Amiin waxa uu leeyahay webiga ugu dheer dunidu waa Nile, Amazon iyo Mississippi. 1 Nile 2 Amazon 3 Mississippi. Nile oo number 1 ayaad u malaynaysaa mise uu yahay waa laga yaabaa in adiga iyo intaasoo haatiriba aad saxsan tihiin. waana laga yaabaa sidoo kale in adiga iyo intaasiba aad qaldan tihiin. nasiibkaaga ayaynu eegi doonaa. waxa uu doortay jawaabta koobaad. aad iyo aad aniga uga mahad celinaya ka qaybgalkiisa. Amiin oo fasalka koobaada jawaabtiisu sidaasi ayay sax ku tahay. ardaygii saddexaad ayaynu u gudbi doonaa. Amiin sidii aan sheegay waxa uu helay bushqadii barnaamijka socdaalka aqoon maal. sidoo kale wuxuu helay adeega kaafiye iyo adeega aqoon maal oo free subscription ah.
sidoo kale hadiyadaha kala duwan ee fasalkiisa aqooneed iyo noloshaba wax ka taraya ardaygii saddexaad ayaynu u gudbi doonaa oo ay nasiibkiisu qaadan doonaa kadibna waxaynu eegi doonaa lambarka u soo baxay iyo su-aasha u soo baxday 26 jaabir oo fasalka saddexaad ah su-aashana waxay leedahay jaabirow sheeg imse jeer ayaa qur'aanka lagu sheegay magaca nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam jawaabta koowaad 4 jawaabta labaad 6 jawaabta saddexaad 10 4 jeer ma hubtaa way jaabir su-aasha u soo baxday waxay ahayd su-aal diini ah imise jeer ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam lagu sheegay magaciisa qur'aanka waxa uu yidhi 4 jeer jaabir oo fasalka saddexaad ah jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa uu ku guulaystay jaabir oo fasalka saddexaad ah hadiyadda ama bushqadda barnaamijka socdaalka aqoon maal sidoo kale waxa uu ku guulaystay internet unlimited ah oo muddo 30 cisho ah sidoo kale waxa uu ku guulaystay barnaamijka aqoon maal oo free subscription uu ku helayo nasiibkiisa ayuu qaadi doonaa kadibna waxaynu eegi doonaa su-aasha u soo baxda waa lambar imisa waa lambar 5 su-aasha u soo baxday waa su-aal diiniya waxay leedahay su-aashani sheeg haweenayda magaceeda qur'aanka lagu sheegay sheeg haweenayda ama gabadha magaceeda qur'aanka lagu sheegay 1 caaisha 2 zaynab 3 maryam ma hubtaa jawaabta mid garanaysa aayadda lagu sheegay mise in suurad maryam la yidhaahdo unbaad u malaynaysaa in lagu sheegay ومريم بنت عمران التي أحسنت waa maryam macala aayaddii buu israaciyey waa yahay bilaa muran bilaa buuq jawaabtaasi sidaasi ayay sax ku tahay marka waxa uu ku guulaystay barnaamijka socdaalka aqoon maal sidoo kale waxa uu ku guulaystay barnaamijka internetka unlimited sidoo kale waxa uu ku guulaystay barnaamijka aqoon maal free subscription soo dhow magacaaga iyo fasalkaaga أنا واحد لا خضر مهدي عبدي واحد 3D بان way khadar mahdi oo fasalka saddexaad ah waa su-aashii ugu dambaysay lambarka 7 ayaa u soo baxay lambarka 7 su-aashani waxay leedahay waa su-aal dhaqana maahmaah soomaaliyeed ayaad dhammaystiraysaa maahmaahdaasi waxay leedahay wadaad jiilaal jooga wadaad jiilaal jooga hee saddexdan mid ka mida baa markaa buuxinaysa shaadali baa la siiyaa 2 injir lagama qabto 3 neef looma diido ku cawraya haddii kale saddexdaa keebay mahmaadu ku saxta هوي نفس لما دي دوين magacaagiigu celi خضر مهدي way khadar mahdi waxa uu yidhi wadaad jiilaal jooga waxa uu ku sheegay jawaabta saddexaad oo ah neef looma diido isku day wanaagsan buu sameeyey hambalyo jawaabtaasina sidaasi ayay qalad ku tahay way nimcaan soo ma oo fasalka labaada way nimcaan nasiibkaaga qaado su-aasha 22 su-aasha nimcaan u soo baxday ama su-aasha 22aad waa su-aal diiniya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa wiilkiisa ibraahim u dhashay 1 maariya 2 caaisha 3 sawda sawda waa yahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam imse caruur nebi moxamed dhalay 7 imse wiil lahaa 4 imse habla ahaa 3 caruurta intooda badan yaa dhalay ya khadiija hal wiil mooyaane nimcaan su-aashaasi jawaabteedu sidaasi ayay qalad ku tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay raalli ahaada waayo ardaygan waa fasalka saddexaad way magacaaga حمزة
xamse oo fasalkiisu yahay 3D saddexaad way su'aasha lambarka u soo baxay waa lambar 23 su'aashan waxay leedahay sheeg su'aalahan imkaan isweydiinayno 13,500 oo su'aalood oo lamida baa waxay ku jiraan istijaabi ma garanayo sababta nasiibkiinu u soo saari waayey chemistry iyo biology aqoon guud bay intii badnayd idin soo baxday xamse sheeg nabigii uu liqay xuudku ama nibirigu jawaabta koobaad waa nabiga loo yaqaano dhalyasac 2 ilyaas 3 yuunus saddexdaa waa kuma nabigii uu liqay nibirigu يونس صدح يونس ويا waayahay waa yuunus oo saddexa waxa uu ahaa nebi yuunus calayhi salaam jawaabtaasi uu bixiyeyna sidaasi ayay masaxda mise waa khalad aayadda sheegaysa ii sheega waaye madgarasa aayadda wa inna yuunusa la min almursaliin id abaqa ila alfulki almashxuun aad iyo aad baa umahadsantiin